soo dhawaada asxaabay. beri baa waxaa jiray haweeney lagu magacaabi jiray Shatela waxa ay ahayd haweeney faqiir ah, balse waxa ay lahayd dukaan yar oo ay ku iibiso qaadka. Shatela ninkeedu waxa uu ku dhintay shil baabuur, waxa ayna xanaaneyn jirtay dhammaan qoyskeeda oo dhan. dadkuna dukaankeeda waa ay jeclaayeen oo waa ay ka adeegan jireen, waxa ayna sumcad ku lahayd dadka dhexdooda. maalin maalmaha ka mid ah, xilli ay tahay aroor hore, Shatela waxa ay soo aaday dukaankeedii, balse nasiib xumo waxaa ku dhacay gaari aad u weyn, waa ayna dhimatay. darawalkiina waa uu baxsaday, dadkiina waa ay murugoodeen oo waa ay ka xumaadeen. si kastaba ha ahaatee, waa ay duugeen oo waa ay ka samreen. waqtigu waa uu soconayaa, maalmuhuna waa ay dhammaanayaan. Shatela dukaankeedii waa lala wareegay, balse Shatela waa ay soo kacday, weliba iyadoo reer aakhiraad ah. waxa ay doonaysay inay ka aargudato qofkii dilay iyo qofkii la wareegay dukaankeedii. balse maxaa dhici doona? fadlan intaan haddaad nala soo gaadhay, nagu soo biir oo subscribe noo saara channelkeena. haddii aad horey noola joogtayna noo like garee, lana soco qeybaha dambe ee muuqaalka. mahadsanid.